mas-uuliyiinta maamulka gobolka bari ee Puntland ayaa waxa ay soo bandhigeen rag ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin ururka Daacish raggaasi oo isugu jira saraakiil iyo askar sida warbixintani magaalada Boosaaso oo ka soo dirtay wariyahayaga Faaduma Taxadar sideedan xubnood la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Daacish ayay hay'adaha amniga iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka bari maanta si wada jira u soo bandhigeen kuwaas oo sheegeen inay isugu jiraan saraakiil iyo askar xubnahan oo la sheegin in wax maxkamadda la soo taagay ayaa gudoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado uu ka dhawaajay in cafis loo fidinayo balse marka hore madaxweynaha Puntland la horgeynayo ka yiraahdo dhalinyaradan aan la hadlo kuwa kalena fariin u diro dhalinyarada waxaan leeyahay hadaa bahlano arkayseen bini aadanka diinta leh dhaqanka leh dawladnimada leh baanu nahay oo sidaa inay ixtiraamay oo adiga shalay inagoo afbashaashi ku dagaalanay adna dhada ii garanayso anna aan ku aqaano nin Daacish ah maanta mas'uuliyadaadu saaran tahay oo halkan aan wax dambi aan ku haysan waxaan jeclahay wixii aad horay u gasheen dani walba u geystay Ilaahay baa kula xisaabtamaya laakiin wixii dalkii dadka aad ka geyseen oo aad ka gasheen waxa weeye inta ahayn kaga ekaato marka waxa la rabaa in wixii aad gasheen wanaag ku bedeshaan wixii aad sameyseen xagga fiican aad ka istaagtaan wixii aad kharibteen ama bini aadanka allayseen ama muxuu ahayd gafkii aad ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka waad ka gasheen in Ilaahay uga toobad keentaan ummadina ka mid noqotaan saaxiibkay waxa uu ahaa taliyaasha ninka ugu sareeya ninka ku xigo kale waxa laga yaabaa 7 kamida 7 ay ahaayeen isagoo halku jooga 6 midna biyo ku dhintay biyo lagu hafiyo waa dhintay waxay noo kala qorsoon ma jiraan kasto waa maxayday halka buurta ku haysaan waxa weeye waa xogtooda waa ognahay waayo waa u dhalanay adinku bay iyo bakool ba dhamaantiin ka timaadeen marka la ka reebanin qaar kamid ah xubnahan la hayo ee maanta la soo bandhigay ayaa iyaguna madashan ka hadlay horta in badan baan waxaan ka tirsanaa ururka al-shabaab taqriiban 6 sano hal sano waxaan ka tirsanaa ciidamada Daacish muddo intaas leeg waxaan uga tirsanaa mabda waxaan aaminay inaan ahay magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Isaaq Barre waxaan ku dhashay gobolka Baay magacayga oo xarakayga waxa la yiraahdaa Faysal muddo hal sano waxaan la shaqeynay ciidamada Daacish intaan la shaqeynayay waxaan ahaa nin ka tirsan mas'uuliyadda Daacish muddo 6 bilood baan hayay xil marka sifada uu kaliftay in nimanka isaga soo baxo nimanka dawladda inta wadanka aan qarxibayay waxaan ka aaminsanaa nimankan intaan ka tirsan 6 bilood xilkaan hayay wax badan baan isku maandhaafnay ayaga Abdullahi Aadan Cabdullahi ma garta degmada afguya ayaan ku dhashay gobolka Shabeelle Hoose yaa bow degmada afguya gobolka Shabeelle Hoose ayaan ku dhashay horena waxaan ahay ururka al-shabaab haddana muddo hal sano ah waxaan ku tirsan ururka Daacish Ilaahay baan igu soo saaray Ilaahay baa maxadiska la qulubada asiga gadiyo haddana alxamdulillah Ilaahay oo dadkayga muslimaadka wali shalay waxaan ku aaminsanayn ama loo sheegay ama nagu qaldaayay ay saaqiido xumaan nagu qaldaayeen oo dadkeena ay leeyihiin dawladdeena ay gaalay ku sheegayeen gaalnimadana maanta waxaan u arkay in yahuud ay yihiin ayna arknay shalay waxa mabday gudoomiyaha maxkamadda dambiyada culus ee 5 gobol oo Puntland ah Cornel Cawil ayaa isagu sheegay in cidii soo dhiibeysa ay marka hore telefoon iska soo hormariyaan sidaasina cafis lagu sameynayo balse wuxuu ka biyadiiday in qof hadii la qabto isagoon warbixin aan laga haynin iskana soo hormarin inaanu cafis helayn nimankan Daacish shabaab ururada xaq jirka calaad baan laga dhaxaysa waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka soo baxda oo fahanta wadankooda iyo mustaqbalkooda iyo noloshooda shaqsi kasta oo fahma waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay kuwa ku harsan oo ku dhibaataysan meesha inay iska soo warbixiyaan oo ay warbixin iska soo hormariyaan telefoon dirsadaan
hadday federaal la hadli lahaayeen iyo waqooyi hadday la hadli lahaayeen iyo hadday puntland la hadli lahaayeen maaha inay iska soo galaan haddii la qabto waa nin dagaal u socday oo la qabtay wey waxaan leenahay cidda soo galaysaa teleefon ha iska soo hormariso hay-adaha amniga ha la soo hadasho deetana waa laga hortegaya waana la soo dhaweynaya waana la sii daynaya bishuruud laakiin haddaad adoo qorgaaga wato iska soo xulatoo tiraahdo waa soo galay maa yamshi ma ad soo gelin dagaal baad u socotay taasaan u qaadanayna annagu sidaa aawadeed baan waxaan leenahay kuwa ku haray ha ka soo baxeen iyagoo iska soo horumarinaya teleefon oo la hadlaya dadka caa'ilada ay yihiin iyo hay-adaha amniga haddaan taa la helin ninkii yimaada oo la qabto oo boosaaso laga dhex qabto iyo puntland ama soomaaliyaba dee waa nin dagaal u socday taa ha la ogaado wafaad mutaxadar TV-ga RTN boosaaso